asxaabteena ogaalka macluumaadada toyob assalaamu calaykum. Barnaamijkani waa mid aan kaga hadalno ciyaartoy ka soo jeeda qaarada kala duwan iyo wadamada ay u kala ciyaaraan sidoo ogaan lahayd daawade. qaybteenan afraad waxaan kaga hadli doonaa 10 ciyaartoy oo ka ciyaara Premier League wadamada ay ka soo kala jeedaan iyo wadamada ay dhalashada haystaan. Lambarkeena koowaad waa Nabil Fekir, dhalashaan oo haysto wadanka Faransiiska, aslaan ka soo jeedo wadanka Algeria, wadankaas oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Xidiga waa xidig cajiib ah, iminkana wuxuu ciyaaraa kooxda Real Betis. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa doonistiisu ahayd 2019 Nabil Fekir inuu keeno garoonka Anfield, laakiin doonistaasi may rumoobin markii uu Jurgen Klopp 3.50 milyan uu ku dul saaray wiilkan, laakiin waa laga diiday oo qiimaynta ka sarreeya ayaa loo sheegtay. xidigan waa xidig cajiib oo doonaya inuu ku bedelo Mohamed Salah xameenka uu maqan yahay garabka kooxda Liverpool. ciyaartoygeena labaad ee kaga hadlayno xalqadeenan maanta waa Corentin Tolisso, dhalashaan oo haysto wadanka Faransiiska, aslaan ka soo jeedo wadanka Togo, wadan yar oo dhaca qaaradda Midowga Afrika. Corentin Tolisso oo ciyaaristiisa kooxda xooga badan ee Bayern Munich ka ciyaaristiisa liiga kala duwan sida Liga Spain, ka Talyaaniga iyo joogidiisa iminka kooxda Bayern Munich. quwadiisa jireed iyo qaab ciyaareedkiisa cajiibka ayaa ka yeeshay inuu noqdo ciyaartoy ka ciyaara afka hore kooxda ugu xooga badan ee Bayern Munich. wiilkan cajiibka waxaa doonay kooxo ka dhisan Ingiriiska sida Manchester United, laakiin qiimaha ayaa la isku diiday. balan eegno wiilkan ciyaartoyga qaab ciyaareedkiisa wanaagsan. nambarkeena saddexaad ee kaga hadlayno xalqadeena waa Presnel Kimpembe, dhalashaan oo haysto wadanka Faransiiska, aslaan ka soo jeedo wadanka Congo, wadan yar oo dhaca qaaradda Afrika. Presnel Kimpembe wuxuu ciyaaraa kooxda PSG ee ka dhisan liiga wadanka Faransiiska. waa difaac cajiib ah kana ciyaara xagga dambe ee kooxda PSG. abdifaaceedkiisa wanaagsan ayaa ka yeelay kooxda PSG inay noqoto kooxa ugu xoogan Faransiiska iyo marka la ciyaarayo Champions League. Presnel Kimpembe doonistiisa kooxa badan iyo inay PSG iibin weyday. magaciisa waa Presnel Kimpembe, balan eegno qaab difaaceedkiisa wanaagsan. lambarkeena afraad ee kaga hadlayno xalqadeenan maanta waa Stephen Nsonsi, dhalashaan oo haysto wadanka Faransiiska, aslaan ka soo jeedo wadanka Congo, wadankaas oo dhaca bartamaha qaaradda Afrika. wiilkan oo ciyaaristiisa liiga kala duwan ka ciyaaristiisa kooxaha waaweyn sida kooxda Roma, ka wareegistiisa Roma uu wareegay kooxda Rennes. wiilkan qaab ciyaareedkiisa wanaagsan iyo habkiisa u ciyaaro ayaa ka yeelay inuu ka ciyaaro kooxaha waaweyn. magaciisa waa Stephen Nsonsi, balan eegno qaab ciyaareedkiisa wanaagsan. ciyaartoygeena shanaad ee kaga hadlayno xalqadeenan maanta waa Moussa Sissoko, dhalashaan oo haysto wadanka Faransiiska, aslaan ka soo jeedo wadanka Mali, wadankaas oo dhaca qaaradda Midowga Afrika. wiilkan doonistiisa kooxa badan iyo ka ciyaaristiisa kooxa lagu jecel yahay Premier League Ingiriiska. kooxdiisa waa kooxda loo yaqaano Tottenham. wiilkan wuxuu ka ciyaaraa dambeedka dambe ee kooxda Tottenham, waa difaac bira.
wiilkan uu ciyaaristiisa kooxdan Tottenham qaab ciyaareedkiisa wanaagsan iyo xirfadiisa cajiibka ayaa ka yeeshay inuu noqdo mid ka ciyaara Premier League Ingiriiska. Magaciisa waa Musa Sissoko. Balan eegno qaab ciyaareedkiisa wanaagsan. lambarkeena 6 ee kaga hadlayno xalqadeena maanta waa Alexander Lacazette. dhalashaan inuu haysto wadanka Faransiiska, aslaan uu ka soo jeedo wadanka Guadeloupe, wadan yar oo dhaca badweynta Atlantika Ocean. wadankan loo yaqaano Guadeloupe wuxuu raacsan yahay Afrika, waxa guumaystay wadanka Faransiiska. wiilkan wuxuu ciyaaraa kooxda Arsenal, kooxa ka dhisan Premier League Ingiriiska. wiilkan qaab ciyaareedkiisa wanaagsan iyo xirfadiisa ayaa ka yeeshay inuu ka ciyaaro Premier League. magaciisa waa Alexander Lacazette. ciyaartooygeena 7 waa Wissam Ben Yedder. dhalashaan inuu haysto wadanka Faransiiska, aslaan uu ka soo jeedo wadanka Tunisia, wadan yar oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Wissam Ben Yedder uu ciyaaristiisa liiga kala duwan iyo inuu ciyaaro kooxda Monaco. wiilkan doonistiisa kooxa badan ee Premier League sida Manchester City, Manchester United iyo Chelsea. waa wiil cajiiba, qaab ciyaareed wanaagsan iyo xirfadiisa ayaa ka yeeshay in doonistiisu badato. wiilkan magaciisa waa Wissam Ben Yedder. lambarkeena 8 waa Benjamin Mendy. dhalashaan inuu haysto wadanka Faransiiska, aslaan uu ka soo jeedo wadanka Senegal, wadankaas oo dhaca qaaradda Afrika. Benjamin Mendy dhalashada wuxuu haystaa wadanka Faransiiska, asalkiisa Senegal. wiilkan wuxuu ciyaaraa kooxa lagu jecel yahay Premier League, waana kooxda Man City. wiilkan wuxuu ka mid yahay shaxda joogtada ee kooxda Man City, kooxa lagu jecel yahay Premier League Ingiriiska. wiilkan wuxuu haystaa boos joogta oo safka dambaha. qaab ciyaareedkiisa wanaagsan iyo xirfadiisa difaaca ayaa ka yeeshay inuu noqdo mid joogta ciyaar kastoo ciyaarayso kooxda Man City. magaciisa waa Benjamin Mendy. lambarkeena 9 waa Djibril Cissé. dhalashaan inuu haysto wadanka Faransiiska, aslaan uu ka soo jeedo wadanka Mali, wadankaas oo dhaca qaaradda Afrika. Djibril Cissé dhalashada wuxuu haystaa wadanka Faransiiska iyo asalkiisa wadanka Mali, wadankaas oo dhaca qaaradda Midowga Afrika. wiilkan oo ciyaaristiisa liiga kala duwan iyo joogistiisa kooxda Everton, kooxdaasoo ka ciyaarta Premier League Ingiriiska. wiilkan waa safka hore ee kooxda Everton, kooxa lagu jecel yahay Ingiriiska. wiilkan qaab ciyaareedkiisa wanaagsan iyo xirfadiisa ayaa ka yeeshay inuu ka ciyaaro kooxa ugu adag Ingiriiska. magaciisu waa Djibril Cissé. lambarkeena 10 ee kaga hadlayno xalqadeena maanta waa Raphael Varane. dhalashaan inuu haysto wadanka Faransiiska, aslaan uu ka soo jeedo wadanka Martinique, wadankaas oo dhaca badda Atlantika Ocean. wadankan waa wadan raacsan Afrika, laakiin waa jasiirad ku taala Atlantika Ocean. xidigan wuxuu ciyaaraa kooxda Real Madrid, waa dabeedka dambe ee kooxda Real Madrid iyo dhexda. magaciisa waa Raphael Varane. daawadayaal, halka ayaan kusoo gabagabaynaynaa 10 ciyaartooyin kaga hadlayna xalqadan. fadlan subscribe saar. mahadsan.